saxaafadeedku wuxuu ku saabsan yahay galmudug waxay khalkhal gelisay ammaanka Puntland. Dowladda Puntland ayaa ka digaysa weerarada hubeysan ee ka socda magaalada Gaalkacyo iyadoo bartilmaameed laga dhiganayo bulshada rayidka, mas'uuliyiinta dowladda, shaqaalaha hay'adaha samafalka, iyadoo waliba kooxo hubeysan deganna xaafadda Galmudug ee magaalada Gaalkacyo ay khalkhal geliyeen diyaaradaha qaramada midoobay UN-ka ka dega magaalada Gaalkacyo. Dhacdooyinka hoos ku xusan ayaa muujinaya dhacdooyinka amni darro oo isu soo taraya. 6 November 2011 baabuur ganacsi oo Puntland laga leeyahay ayaa lagu afduubay Gaalkacyo iyadoo waliba ay kooxo hubeysan baabuurkaasi ku haystaan gudaha xaafadda Galmudug. 8 November 2011 baabuur labaad oo laga leeyahay Puntland ayaa sidoo kale waxaa kooxo hubeysani baabuurkaasi ay wali ku haystaan gudaha xaafadda Galmudug ee magaalada Gaalkacyo. 16 November 2011 qof shacab ah oo reer Puntland ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Gaalkacyo isagoo wadada maraya. 18 November 2011 mas'uul u shaqeeya hay'adda samafalka ee Norwegian Refugee Council NRC ayaa lagu dilay magaalada Gaalkacyo. 20 bishii November 2011 saddex qof oo shacab ah ayaa lagu dhaawacay weerar lagu qaaday baabuur ganacsi oo dhex maraya magaalada Gaalkacyo. 21 November 2011 madaarka ama aeroboortka Gaalkacyo ayaa waxa lagu duqeeyay madaafiicda lidka diyaaradaha. sidoo kale 22 November 2011 madaarka Gaalkacyo ayaa mar labaad la weeraray iyadoo la carqaladeynayo howlaha dayuuradaha shacabka iyo dayuuradaha UN-ka oo samafalka ay ka wadaan airportka magaalada Gaalkacyo. weeraradan isxiga ayaa laga soo abaabulaa xaafadda Galmudug ee magaalada Gaalkacyo. Puntland ayaan marnaba u dulqaadan karin weerarada lagu hayo shacabka, hay'adaha samafalka, howlaha ganacsiga iyo madaarka magaalada Gaalkacyo. dowladda Puntland ayaa shacabka ugu baaqaysa in loo midoobo meelna looga soo wada jeesto kooxaha lidiga ku ah nabadda iyo ammaanka iyo xasilloonida Puntland. dowladda Puntland ayaa sidoo kale ogeysiinaysa beesha caalamka weerarada lagu hayo Puntland lagana soo abaabulayo xaafadda Galmudug. dowladda Puntland waxaa waajib dastuuri ah ka saaran yahay in ay dadka iyo dalka iyo qarannimada ay difaacdo cid kasta oo khalkhal gelinaysana kaga hortagto xag ciidan iyo xag talaba gudahana u gasho meel kasta meeshii laga soo weeraro iyadoo isdifaacayso. dulmarka uu ku sameeyay war-saxaafadeedka afhayeenku kadib ayaa warfidiyeenadu su'aalo ka weydiiyeen ujeedada war-saxaafadeedkani iminka ku soo beegay. si kastaba ha ahaatee shir saxaafadeedkan ayaa ku soo aaday xilli ay maalintii labaad duqeyni ka dhacday madaarka Gaalkacyo taasoo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen maamulka Galmudug ee ka arrimiya koonfurta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolkaasi Mudug. horta saad la socotidba Gaalkacyo in muddo ay waxa ka socdeen tan hadda aan inta ka sheegnay iyo in kan badanba way ka socdeen oo way ka dhacayeen magaalada Gaalkacyo. waana la ogaa sirdoonka waa ay soo cadeeyeen wax alla wixii meesha ka dhacana waxa laga soo abaabulaa xaafadda Galmudug ee magaalada Gaalkacyo. wax alla wixii dil geystana meeshay galaan. dowladda meesha ka jirtana saad ogtahay dowlad tabar badan oo control karta ma aha. marka waa xaqiiq in ay meesha laga soo abaabulo wax walba meesha ka dhaco. mudana afiyaan Salim TV-ga Soomaaliya waxaad sheegtay in meesha dhacdooyin badan ay ka dhaceen oo ay nimankaasi fal dambiyeedyo badan ka geysteen. maamul adristiin weeye
marnaba arrintaan hore ma uga wada hadashay intaysan arrintu qaabkan gaarin ama halkan gaarin waxaa jiray heshiis u yaalla Puntland iyo Galmudug oo lagu heshiiyey in laga wada shaqeeyo xagga amniga la isuna celiyo waxa la wixii xaggana wax ka geysta xaggana wax ka geysto dhowr jeer oo aan mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo ay ku tumteen heshiiskaas dawladda Puntlandna uma dul qaadanayso wax alla wixii amnigeeda khalkhal gelinayo waa ay jiraan dastuurku wuxuu u fasaxayaa Puntland in ay shacabkeeda iyo qarannimadeeda iyo amnigeeda ay sugato mana aha in baaqiriya la jeedinayo waa ay jiraan howlo la qabanayo balse Puntland mar walba waxay ka shaqeysaa nabadda dadka nabad ay ugu yeertaa dariska nabad bay kula shaqeysataa laakiin dastuurkeedu wuxuu qorayaa waxa la wixii soo weeraro iska difaaco